السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والاليال maanta waxaan inoo haynaa kelmad uu inoo tartaaran oo inoo jeedinayo sheekheena qaaliga ah Sheekh Shibili kusoo dhawaada kelmadaas waxay ku saabsanaan doontaa kelmadu dadkan been abuurka sameynaya ee oranaya nabiga caynka yiri ama nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam beenta ku been abuuranaya ama diintaba doonayeen inay naga fasaahadeen wax cusub ku soo daraan marka dadkaas la doonaya inaynu ka hortagno dhamaanteen inagoo gacmaysan inagoo wada jirna shaykhdeena iyo culimadeena inoo ka digayaan mar walbana ay tahay inaynu ka faajignaano jeegaanjana la weydiin soo turjuntay way isugu soo gintay barday fadalo ku soo dhawaada dhageysa habboon walaal fariimo beena oo dadka aad loogu fidiyo waxaan rabaa inaan ka hadlo laba nooc oo mid ay laba tahay nooca koobaad aan rabaa inaan ka hadlo waa fariimo badan oo qoraal idinku soo gaaraya oo leeyahay waxa hadda akhrido waxa sadhili aad ku sad akhrido waxa sadhili qurwal inta hadda akhrido waxa sadhili digri hadda akhrido waxa sadhili mudinta le gudaheed bad waxaad ku arki haddaad sameyn weey fariintan fid haddaad fidin weeyda dhibkaas kugu dhici oo ballan qaadi oo sidaas oo badan oo beena arrimahaas shaki badan waxa laga qabaa inay ka dambeeyaan dad aan muslim ahayn nuxurka iyo ujeedaduna diinta dadka in laga shaki geliyo ay tahay laba arrimood marka waa muhiim inaad ku baraarugto marka koobaad waxaan la sheegayaa waad heliyo kugu dhici la leeyahay waxba kama jiro aayadna ma sheegin xadiis nabi oo suganna ma sheegin waa been ay dadku sheegeen waa been la alifay oo sariya raatoona lahayn sadarata ballan qaadiyada diinta kamid maaha sax aad ku siin la qari fadli walaah tusaalahan laakiin da akhri waxa saab kugu dhici yada akhrinta akhrinta muddo inta leeg bad wax ku helido been way qodobka labaad ee ku baraarugta ay tahay waa xumaanta ka dambaysa haddii maanta ballanqaadkaada rumayso arki weydo mid labaad arki weydo mid saddexaad arki weydo mid shanaad arki weydo mid tobnaad arki weydo marka dambe waxa iman diinta waxaanu ballan qaadaysay wada beenta maxay tahay diinta wada ka shakida way waxa labaad imanay waana yoolka laga shakisan yahay hay'ada iyo shakhsiyaad iyo dad badan oo waxa ka shaqeynaya inay hiigsanayaan haddaba si khaldan aan lagu raran arinta labaad ee fariinta labaad ee aan raba inaan baraarujiyo waxa weeye maalmahan qof codkiisu aad isugu egyahay ishabaho oo wuxuu soo diraa fariimo xambaarsan xadiis nabi sallallahu alayhi wasallam laakiin beena aan laba fariimood ka soo qaato waxa laga yaabaa inaad ila aragteen aad iyadoo la isugu dirayo fariin oranaysa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam afar jirkay ku jiradaan afar jirkay dumiyaan afar risqay reebaan afar risqay furaan afar wajigay nuuriyaan afar wajigay nuurka ka qaadaan taas waa been nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa dardaarano dhakhaatiir bixiyeen ibn al-qayyim zaad al-ma'ad ka akhirkiisa ku sheegay qaar koodna niman dhakhaatiir oo Greegi hore jaalin iyo si rag la mid ah bixiyo muslim baahay taas nabiga yiri waa been waxba kama jiro isla fariinta waxa ku duuban in nabiga alayhi salaatu wasalaam uu yiri saytuunku saliida zaytuunku toddobaatan cudur bay dawa ka tahay waa been nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa kamid ah aadaanka halla aamuso xiyaan la akhriin nabi maxamed wuxuu yiri haddaad aadaanka socdo wax akhrido shahaadada sakaraadka markuu qabto tawxiidka haleeli maysid iyana waa been waxba kama jirna xad ba hadli jiray saxaabada hadli jiray oo sheekaysan jiray aadaanka socda sida Muwatta Malik laga wariyay Umar markuu khudbeynayo fuulo minbarka salaada la joojin jiray inta la aadaamayna waa la sheekaysan jiray saasi saxaabada ahaan jiray markayna waa been nabigu ma dhihin waxa kamid ah fariinta uu xambaarsan yahay rumaanka inantiisa iyo midhiisa mid kastaba biyaha ku jira jannay ka yimaadeen ama biyo jannaa ku jira waa been nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam fariinta dhan laba eray waa runka nabigu wuxuu yiri ballighu anni walaw aaya ya nabigu wuxuu yiri habatu sawdaa shifaa min kulli daa inta kale waa been nabigu sallallahu alayhi wasallam fariinta labaad ee tusaalaha soo qaadanaya kala waxa weeye codka shabah ninkaana weey yaa wuxuu warinayaa fariin ku bilaabanaysa wallahi wabillahi watallahi haddaad dhageysato wuu ku saameynaya qalbiga wuxuu ka bedelayaa duruusan fil hub inta dhaarta muxuu ku dhaartay been buu soo wadaa wuxuu leeyahay nabiga iyo Umar iyo Abu Bakar iyo Abu Dharr baa meel isugu yimid Abu Bakar buu weydiiyay maxaad jeceshahay buu adduunyada saddexan u jecelahay buu Umar buu weydiiyay saddexan u jecelahay buu Abu Dharr buu weydiiyay saddexan u jecelahay jire iyo cudur iyo kamida
kadib nabigaa la weydiiyo adduunyada saddex baan u jeclahayo atiibu walnisaau wasalaatu buu yiri buu leeyahay intan dambe oo weli wax khaldani ku jiraa ka jirta tan nabiga calayhi salaam way jirtaa xubiba ilaya min dunyaakum atiibu walnisaa wajucilat qurata cayni fi salaa adduunyadiina riwaayaadka qaarkood odhanaya halaaatun waa been riwaayada halaaatun ma jirto waayo salaadu adduunka ka mid maahaba atiibu walnisaa nabigu waa yidhi sheekadan kale ee ku lamaani waa been meel kutubu sunna ay kaga qoran tahayna ma jiro inay sidaas tahayna culammadu waa sheegeen nin la yidhahda qastalaani buu mawaahib laduniya ku sheegay cajruurina fii kashfi alkhafaa markuu sheegay meel lagu garanaya inayna jirin bay sheegeen marka sheekadaa beenta buu dhaar uusan ilaahay ugu baari samaynin buu ka horraysiinayaa codka ninkan iyo ninkaa waa isu egyihiin dee ciddii garanaysa farrinteeda ha gaadhiso muslimka beentana dhexwada ka daa ha la yidhahdo nabigan laga been sheegaayo been la mid maaha khayr baan jeclahayna qiil uma aha in nabiga laga been sheego dadka fariimaha beentaa sheegayana intaad waxaan khayr baan jecel lahay tiraahdaan ha dambaabina oo beenta axaadiidta haddaad 100 qof u qorto u dirto wada fowaar garaysaan ood sii dir wada dhahdaan mid walba wuxuu ku leeyahay akharka agtaada yanan fadhiin qofka weliba waxaan u sii badinayaa codkiisa in sii adkaysiinaya xataa carabi ma kasi ma garan yaqaan carabi si loo wada qofkan ma yaqaan tan dambe saddexda u dhaaranayana abu dhar buu magaciisa kale laayay tan horana sadaqa jaariyu garan laayay sadaqatu jaar wiilay jaar waa darisne jaariya ma sadaqa soconaysa ma حتى جاري جار بكرة كعن لايه أبو ذر بقعد كعن لايه حينتم بنتن أحاديثا مالو كسر قرا الاستعداد ليوم المعاد كي من حجر لو تيرني يا بنتها يا ثلاثيات كي رباعيات كي خماسيات كي سداسيات كي عشاريات كبنتها يكبوا حين بانو ملاينا يا مديبو من نقننه إنه قيب كسر طلطلة وحن ربا فرين تيلو خير كفيدية لكن اسكهو بصدق دميرة بنت الورد عن صدها نقننا مكرفونا بنت وأديجها النقننا وهذا النبي والله قب عن شيء وأدم بوين نبي حين كذبا علي ليس ككذب على أحد بين لا يغشى الله من ما بين قف كلا يغشى فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إلهي الله يجابه فرينت إذا قفك صوت وعدي قرانة سيادتك هلا جارسيه بنت هلا سكيل عليه خير له وانا هلا في ديه وما حسنتي والسلام عليكم ورحمة الله. شيغان channel TV waa barkulan aad ka helayso waxyaabo badan oo horumar ku gaarsiinaya naftaada haddaba dhageyste ama daawade ma doonaysaa inaad hesho waxbarasho basic ah oo ah luqadaha iyo sayniska iyo xisaabaadka ma doonaysaa inaad hesho warbixino iyo warar sugan oo la hubo meesha ay ka yimaadeen iyo isha ay ku socdaan oo xaqiiqada ku salaysan jawaabtaadu haddii ay tahay haa inaad doonayso daawade subscribe Sheegan Channel TV daawo oo ku xidhnow share na la gaadhsiina saaxiibada